قصة جعل يا الله سمعنا يا حلفدان بربرتي in badan oo idinka mid ah ayaa horay u soo arkay gabar Soomaaliyeed oo dhiganayso xaflad aroos ah ama xaflad dhalasho ah iyo sidoo kale xaflado kale oo la mid ah kuwaas oo ay guula ay gaartay ugu dabaaldegayso. hase yeeshee maanta muuqaalkan idinla wadaagi doona waa uu ka duwan yahay, waana gabar Soomaaliyeed oo xaflad u dhigatay burbur soo gaaray nolosheedii hore ama xaflad furiin ah oo ay kaga meeranayso dhibaatadii soo gaartay. haddaba gabadhan ayaa waxa ay ka sheekeynaysaa qisada ka dambeeyay inay xafladan dhigato iyadoona looga soo duubay muuqaal qiiro leh. haddaba daawadayaal inta aan muuqaalkaas kula wadaagin fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu u baaho bulshadeynta Soomaaliyeedna u gaaro, sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena adiga oo janaalkeena subscribe dhaha. haddaba daawadayaal gabadhan Soomaaliyeed waxa lagu magacaabaa Flower Cadi waxayna ku nooshahay magaalada Muqdisho. gabadhan ayaana waxay xaflad u dhigatay furiin ama nolosheedii hore ee burburtay. dad fara badan ayay la yaab ku noqotay arrinkani, waxaana guud ahaan baraha bulshada qabsaday hadal haynta ku aadan arrintan. haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa muuqaal gabadhan Soomaaliyeed oo sharaxayso kana hadlayso xafladii ay dhigatay iyadoo ka warbixinayso sababaha ay u dhigatay xafladan. halkan ka soo qayb gashay xalfadeeda aad ku quruxda badan leh ee kameer wixii ku soo maray waxaan idin leeyahay aad u mahadsantihiin. awalan dhamaanteen flower family waxaan idin leeyahay mahadsanidin. sidoo kale waxaan u jeedaa marti aad u qurux badan ee ka soo qayb gashay xalfadeeda una taagan farxadeedii inay la qayb gashto. waxaa kamid ah waxaan u jeedaa gudoomiyihii Horseed family, waxaan u jeedaa gudoomiyihii dhalinta mustaqbalka, waxaan u jeedaa daljir oo ah wiil kaliya ee TikTok caanka ka ah xushmad iyo sharaf iyo qiimo aan u hayo. dhamaanteen magacaygu waa Flower, mihi ma garanaysaa qof oo caan saayide laakiin kaliya waxaan leeyahay asxaab qaali ah, dad mar walba garabkayga taagan u taagan aniga farxadeeda. caawa xalfadan waxaa u dhigtay waxaan waay kameer wixii ku soo maray. haddaba daawadayaal gabadhan oo sii wadata hadalkeeda ayaa waxa ay gunta u galaysaa sababta mugga leh ee ka dambayso inay maanta xafladan dhigato oo ay ugu magac dartay kameera wixii ku soo maray. waxayna tilmaamaysaa taariikhdii uu ka burburay xiriirkeeda iyadoona markaasi muujinayso inay wixii soo maray iminka kameera doonto. haddaba bal aynu isla daawano mar kale muuqaalkeeda. xaqiiqatan markaan ka hadlo qisooyinka caawa xalfadan oo dhigo waxaa kamid ah ma idinku badi doona hadalka. awalan in aan ahay isha kaliya shakhsiga kaliya ma garanaysaa qalbigiisa waxyaabo badan dareemayo mar walbana aan ku faraxsanahay qisooyinka faraha badan aan nolosha kala kulmaayo. mar walba oo nolosha wax kala kulantid waxaan kuu siyaadayo adkeen iyo inaad kasii qaadid cashiro badan aan nolosha kasii baratid, aad kasii qaadid firfircooni iyo wanaag. midda kaleeto xumaan iyo samaan wixii laga bartaa nolosha waxay horumar u yihiin dhiirigelin iyo horu socod. mihi qof ma garanaysaa u jooji doono horay yani qiso jaceyl ayaa loo sameynaya xalfadan burburtay 10kii bishii Oktoobar bishii Oktoobar 28kii Oktoobar bishii 10aad 2020. waxaan ku faraxsanahay nolosha cusub ee caawa ii bilaabanayso. waa 20kii November, waxaan ku jirnaa sanadkii wili muuse dhamaanin. waa ilaahay mahadiis tan iyo mid kasii qurux badan waa rajeynayaa. haddaba gabadhan oo mar kale hadalkeeda sii wadato ayaa waxa ay sheegaysaa inay tix ama baraambur ay rabto wixii soo maray ay kaga hadlayso ay maanta halkan ka jeediso. haddaba waa kan iyadoo mar kale si qiiro leh arrinkaasi uga hadlayso. haddii aan intaas kasoo gudbo waxaa jiro baraambur aniga aan iskugu talagalay asxaabtadana iga codsadeen inaan qaado caawa halkan aan ka qaado. haddii aan baraamburkaas idiin qaado wallahi xaqiiqatan farxad ayaa la jareynayaa. jawigii dhan ma garanaysaa wuu isbedelay. waxaan rabaa abwaanad mihi laakiin waa laygu xantaa ina abwaanadahay soo marka waxaan rabaa inaan baraamburka halka ka qaado. dhegeysta wacan dhammaan asxaabtani yaa lagu qosliin please. baraamburkii gabayga garahada layga xiray waxaan ka soo gaaray magoodonta hooyadeey ima cidlayna ya rabbiga yacsiisahay
عذابانيه ما جبيهنا يا عادلكي عد كان انيغا اسكالي وانكوعي البحا عدسينتي كيستنا وانعورينا يا على شيء تيغا نعدي عريسني إنك هيبه سلماها يا عنديغا كوهاي عفيسنا واديغا تين عاوي ولي وما تسنتين مركي لوغا سو غدبو haddaba gabaray haddii adiga nolol noocan oo kale ay ku soo marto ma dhiga lahayd xaflad furiin ah taas oo aad kaga meeranayso dhibkii ku soo gaaray sidoo kale waxaan rajay doonaa in ragga Soomaaliyeed muuqaalkani uu noqon doono fariin cad haddii gabdhaha furiinkooda aad ku degdegi jirteen wixii iminka ka dambeeyay haddii aad gabar furto waxaa ku sugaydo xaflad la magac baxday kamayro wixii ku soo maray kaas oo dhibaatadii iyo dhaawacii aad geysatay looga meeran doono gabadhan runtii waxay xafladeeda u dhigatay inay weli muujinayso inay faraxsan tahay nolosheedana aan waxba ka qaldanayn in badan gabdhaha Soomaaliyeed marka la furo waxa loo bixiyaa magacyo kala duwan kuwaas oo lagu liido iyagoona laga dhigo inay ka hooseeyaan gabdhaha aan la guursan halkii loo arki lahaa inay yihiin dad khibrad leh oo nolosha wax ka soo arkay ay bedelkeeda bulshada kala kulmaan liidnaan haddaba waxaan leeyahay gabadhan Soomaaliyeed guuleyso oo cadawgaada ha u jabin xafladana sidoo kale waxaa ka marnayn inay gabadhani ku sheegayso dhibaatooyinkii mugal ahaa ee soo maray oo idil waxaan leeyahay ilaahay dib kuugu micayay dhibaato kale farxad iyo nolol khayr leh ayaan ku rajay doonaa sidoo kale adiga daawadahaana farxad ayaan ku rajaynayaa haddaba ha ilaawin inaad muuqaalka leegareydo sidoo kale aad nagu soo biirto aad janaalkeena subscribe dhahdo mahadsanid xaqiiqatan markaan ka hadlo qisooyinka caal xirfadan oo dhigo waxa kamid ah ma idinku badi doonaa hadalka اولا ان انا هاي ايش كليه شخصي كليه مقرنيسا قلبيgiisa waxyaabo badan dareemayo mar walbana aan ku faraxsanahay qisooyinka faraha badan aan nolosha kala kulmaayo mar walba oo nolosha wax kala kulantid waxa ku siyaadayo adkeen iyo inaad ka sii qaadid casharo badan aan nolosha ka sii bartid aad ka sii qaadid firfircooni iyo wanaag midda kaleeto xumaan iyo samaan wixii laga bartaa nolosha waxay horumar u yihiin dhiirigelin iyo horu socod miyihii qof ma garanaysaa u jooji doono horay yani qiso jecel ayaa loo sameynayaa xalfadan burburtay 10kii bishii Oktoobar bishii Oktoobar 28kii Oktoobar bishii 10aad 2020 waxaan ku faraxsanahay nolosha cusub ee caaw ii bilaabanayso waa 20kii November waxaan ku jirnaa sanadkii wili muusa dhamaanin waa ilaahay mahadiis tan iyo mid kasii qurux badan waa rajaynayaa